soo dhawaada lamaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa kuula wadaagi doonaa shaxdeena VAB-da ciyaaraha la ciyaari doono caawa kuwa oo dabcan aan ku saleyn doono possibility winningkeena inuu ka sareeyo 99% sidoo kale ciyaarahan waxay isugu jiraan ciyaaro dabcan inta ugu badan waxay noqon doonaan isreebka World Cup-ka qaaradda Asia dabcan oo haddaba ciyaaraha Soomaaliya ay ciyaarayso la mid ah waana games adag oo qaran walba uu rajeynayo inuu u soo baxo World Cup-ka soo marka ciyaaraha prediction-kooda wuxuu noqon doonaa kuwa sax ah oo adag maadaama kuwa friendly liga ah kooxo dabcan loo saadaalinayo ama possibility ama probability ugu badan ee guul tahay haddana mararka qaar ay dhacdo in Brazil la galo ama laga badiyo sidii qaranka Ingiriiska ku dhacdo kale game-kii ugu dambeeyay ee friendly liga ay ciyaareen oo dabcan saadaashana 6 kooxood oo kamid ah saadaalina ay kamid ahayd halka koox kaliya oo lagu dhigan Ingiriiska ay ahayd soo marka hadeertan waxa kula wadaagi doonaa ku dhawaad 7 kooxood 7da 6 kamid ah waxay dabcan noqon doonaan Asian dabcan isreebka qaaradda Asia dabcan World Cup-ka soo marka probability ugu badan dabcan dhanka uu jiro ee dabcan badiska jira marka waxa rajaynayaa inay noqdaan shax wada woon ah sidoo kale waxa kuula talinayaa shaxda kula wadaagi doono in laba kooxood ilaa 3 kooxood u saarato hadii even hal koox lagu dhigo si ay kuwa kale ugu badbaado game-kan ugu horeeya Netherlands iyo Iceland wada ciyaari doono probability winning ugu badan 99% waxa haysata Netherlands soo marka waxa leenahay Netherlands double chance ama way badin kartaa ama break galaysa game-keena labaad waa Japan iyo Syria waana dabcan isreebka qaaradda Asia ee World Cup-ka loogu soo baxayo game-kan waxa double chance siinayna Japan oo aan leenahay waa ay badin kartaa ama break galaysa game-keena saddexaad waa South Korea iyo China BR soo marka game-kan sidoo kale waxa double chance siinayna qaranka South Korea oo dabcan aan ku saalinayna inay badin karto ama inay break gali karto soo marka hadii aad doonto 3 kooxood ee hore waa israacsiin kartaa hadii aad doonto 2 kooxood ee hadda ugu dambeeyay sheega waa israacsiin kartaa hadii aad doonto 2 koox kale waa israacsiin kartaa game-keena afraad wuxuu noqon doonaa Australia iyo Palestine waxa leenahay 2 kooxood midkooda badin karo ama Australia badinayso ama Palestine badinayso soo marka mid waa badin karaa oo double chance ka dhiganaysa hadii mid kamid uu badiyo dabcan sidaas aad dabcan woon ku tahay game-keena saddexaad waa Thailand iyo Singapore game-kan waxa dabcan ku saalinayna in Thailand ay heli karto double chance taasoo macnaheedu yahay break ama badisay Thailand heli kartaa waana game-ka shanaad ee shaxdeena maanta Indonesia iyo Philippines ku xiga Indonesia iyo Philippines waxa ku saalinayna in Indonesia dabcan ay heli karto ama ay badin karto oo ay heli karto badis Indonesia dabcan Philippines ka badin karta waana game-ka lixaad Malaysia dabcan Chinese Taiwan soo marka game-kan waxa ku saalinayna in Malaysia ay ka badin karto kooxdan awayga ah soo marka 6 kooxood waxay noqon doonaan Netherlands oo double chance ah oo badin karta ama break gali karta Japan oo double chance ah oo badin karta ama break gali karta South Korea oo badin karta ama break gali karta Australia iyo Palestine oo 2 kooxood midkood badin kara Thailand oo dabcan double chance heli karta oo badin karta ama break heli karta Indonesia oo badin karta Malaysia oo badin karta isku dar shaxdan oodkeedu wuxuu gaarayaa 5.7 waana ood ama ood aad u sareeyo oo dabcan macquul ah possibility winningkiisana marka hadii aad ku qanacsan tahay 2 ama 1 ama sida aad doonto u dhigan kartaa laakiin inaan kala reebto kuula talinaya hadii aad rabto fikrad ahaantaada qaabka u saadaali waa ka bedeli kartaa si aad u natiijo aad ku qanacsan tahay kugu soo baxdo marka hadii aad daawashada ku riixayaan waxa shaashmada kaaga codsanayna jalad subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadana aad la wadaagto waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan